haatan waxaa khadka telefoonka si toos ah ugu jira afhayeenka imaaraadka carabta ee dowladda Khaatumo Rashid Diiriye. Rashid may maqlaysaa? waan ku maqlayaa wariye. waa tahay kusoo dhawow warbaahinta deegaanka. bismillaahi raxmaani raxiim. waan idin salaamayaa warbaahinta sharafta leh ee Khaatumo gaar ahaan wariye Cabdi Ciso. waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. anaa fursada maanta ka faa'iidaysanaya waxaan doonayaa shirkaygu ay maanta ku saabsan yahay inaan ka hadlo shirka ka socda kulanka ballaaran ee ka socda magaalada Balcad oo hadda laba bilood loo diyaargaroobayay haddana uu socdo saddexdii gole ee Khaatumo golihii dhaqanka, golihii wasiirada, golihii baarlamaanka inkaba ay ku sugan yihiin iyo marxalada uu marayo. iyo haddaan nahay dowladda imaaraadka waxaan doonayaa maanta inaan si uga faa'iidaysto inaan hambalyo iyo bogaadin u diro ciddii kasoo qayb gashay hadday tahay madaxweyne cali khaliid galayd, gudoomiyaha baarlamaanka, madaxweyne ku-xigeenka, golaha wasiirada, golaha baarlamaanka, ismada dhaqanka oo qaarkood aan arkayno inay 400 kilomitir ka yimaadeen una soo socdeen sidii uga qaybgeli lahaayeen shirka ballaaran oo laga tusanayo aayaha ummadda Khaatumo. waxaan leeyahay haddaan nahay jaariyadda waanu soo dhaweynaynaa, waanu sugaynaa go'aamada ka soo baxa. waxaan rajeynayaa mid go'aamada kasoo baxa shirka kasoo baxa uu noqdo mid taabagala oo aan ku dhaqmi doono bulshada Khaatumo meel kasta inay joogtaan. waxaan ka codsanayaa inay shirkaa taageeraan, soo dhaweeyaan, la shaqeeyaan, waayo waa aayahoodii, waa mustaqbalkoodii, waa dadnimadoodii baa ku xiran. maanta wadalka jaantuurkeena dhibaato ay ku hayaan maamulada hareeraha sida maamulka Somaliland ama la magac baxay. waxaan rajeynayaa shirkaas oo muddo badan looga difaacanayay inuu noqdo shir ka duwan shirarkii hore. inta kasoo qayb gashay iyo inta fadhida iyo inta u dhabar adeegtana waxaan leenahay hambalyo. waxaan fariidaa gaaran u dirayaa dadweynaha kasoo jeeda degmada Balcad, Rufadi, Bayaal, Woodwood